aqoon darradu waa shayga ugu horreeya ee ku diidan inaad guul la taaban karo ka gaadhid noloshaada amase ugu yaraan aad wax ka bedeshid. aan soo qaadano sheekadan xikmadda badan. waqtiyada ka mid ah ayaa nin beeraley ah oo ku nool waddanka Bangladesh waxa uu ku fekeray inuu beertiisa qoto xilliga guga oo roobku si fiican u da'o. markii la gaaray waqtigii guga ayuu ninkii bilaabay inuu qoto beertii. wuxuu soo kaxaystay cagaf wuxuuna geliyay beertii. markii uu bartanka marinayay ayay cagaftii istaagtay sidii inay wax qabsadeen oo kale. ninkii ayaa ka soo degay cagafta. ninkii markuu ka soo degay cagafta oo uu eegay hoosta cagafta waxba uu ka arki waayay. wuxuu soo qaatay qalabka gacanta ee lagu qodo beeraha wuxuuna qoday meesha ka hooseysa cagafta. waxa uu kaga soo baxay isla markiiba sanduuq aad u weyn. ninkii ayaa farxad la kala batay oo wuxuu sii lahaa wax fiican ayaa kaga soo bixi doona. isla markiiba wuxuu degdegay inuu furo. markii uu furay sanduuqii ayaa waxa kaga soo baxay dhagaxaan madmadow. ninkii oo niyad jabsan ayaa iska xiray sanduuqii wuxuuna naftiisa ugu sheekeeyay kolba waxtar kale ma lehe markii beertu ku soo baxdo ayaad shimbiraha iyo bahalaha kaga ceyri doontaa. wuxuuna hore kasii bilaabay beertiisa inuu qoto oo hawshiisii dhammaystiro. in muddo markii ka soo wareegtay oo ay beertii soo baxday ayay shimbirihu soo diyaar garoobeen in ay cunaan midhaha beerta. ninkiina wuxuu bilaabay inuu ku ceyriyo dhagxaantii sanduuqa uu ku helay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa beerta agteeda waxaa soo maray nin. si lama filaan ayaa hortiisa waxa ugu soo dhacay 2 dhagax. ninkii wuxuu soo qabtay 2 dhagax wuuna eegay. wuxuu gartay inay yihiin dahab. ninkan wuxuu ahaa nin dahable ah oo ka ganacsada dahabka laga soo guro buuraha. ninkii wuxuu ku leexday ninkii beeraleyda ahaa wuu salaamay kadibna wuxuu weydiiyay dhagxaantan maadiga soo tuuray. wuxuu ku jawaabay haa oo waxaan ku ceyrinayay shimbiro beerta iga soo weeraray. ninkii ayaa yiri ma iga iibsanaysaa midkiiba $5,000. ninkii beeraleyda ahaa oo moodayay inuu ninku kaftamayo ayaa ku jawaabay maya. isla markiiba ninkii dahablaha ahaa jeebkiisa wuxuu ka soo saaray $100,000 wuxuuna u dhibay ninkii. wuxuu yidhaahday midkii waxaan kaa siisanayaa $50. wuxuuna u sheegay inay 2 dhagax yihiin dhagxaan dahab ah ee kuwo kale ma haysaa. ninkii intaa markii loo sheegay ayuu wuxuu qabsaday oohin. ninkii dahablaha ahaa ayaa weydiiyey maxaad la ooynaysaa. wuxuu yidhi in muddo marka laga joogo ayaan waxaan helay sanduuq dhagxaana. saan shimbiraha ugu ceyrinayay waxa ka soo haray 2 dhagax. haddii aan sanduuqii maanta haysan lahaa imise lacag ayaan heli lahaa. sheekadan waxaan ka qaadanaynaa dhibka ay leedahay aqoon darradu. haddaba daawade adiga sidan oo kale mar ma kugu dhacday aqoon darro awgeed? nagula wadaag kommentiga ama faallada hoose.